laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yidhi inakeen baratanne waxaa inan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddaa la joogay maalin dambe oo haddana safar la jeega buu yidhi Aisha maantana waa baratamayna inakeen waa yara marmarsato may waa baratamayna buu yidhi ina dhaqaaji waa la baratamay markana Aisha waa yara cuslaat oo inantii yarayda fududayd maaha sidii hore way iska bedeshay dabeetana wuu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yidhi tilka bitilka taati u turbu nabigu yidhi salawaatullaahi wa salaamu calayhi midkeen baa arki kari lahaa isagii haweenaydiisu intay dabada u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suuradda ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninnima la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi oo ah bashariyada ciddii loo soo diray inuu hago ilaahayba wuxuu abuuray kuwa jeclaa subxaanahu wa ta'aala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi dhaqamaha ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maaliku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamidee kunya bay leeyeen anna kunyo Cabdullaahi buu ugu yeedhay imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray Aisha magaco badh la gooyo magaco in la tuuro in yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmaya inuu yahay qaab mashaacirta la ilaahay Aisha inan yara ay xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tiri tan nabigu isu taago dhinaciisay xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan idhaahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabin waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadii tirmidhi albani sahih ku tilmaamay waa idin ku fiican waa kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad هل مفتاح السعادة الزوجية وشركة خيركم نية قبل يسقط الصدين شركة الرأس مال كهانتيد الرسمية هيستاني كنت تجارين أيام بين الأول الحب وهلكو كبل مفتاحها كاني مفاتيح دواء الكبض بيلاده هاي المامان ولما دي كم ده التغاضي إن حساب تبضاني تزيد المسافات بعدا إن لا يسد القاط وحياه بدن إيش اللي جربه تكالجع القوة برناضه فحنكو سوكوبي يوم جوريجا مسلم كاي وجوري كالجعيل يسوور فيو بان كنا وجوري النحاريس إيوه معاملة في عناية النصوص القرآن كي حديث كشيء إحسانية إيثارية وناقة صردان شرا عدالة الرحمة يوح قرآن كشيء يردن ويوامش على الربو إن لغو برباريو وبك برشدة وسوكعية وبكون جوري خيمة تسوى يقانا معنى الحب يدك كالجعل كالله هينيو نحاريسته عدالة نمرسنانته عفوية تسامحة كل ذلك النصوص القرآن ترضى بدن لا شيء يسوي اللي يريد kala kula dhaqan waxa awla ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay taa nolosha wadaagtaa haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu calayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhamaysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabayt saisku tihiin buu yiri arrinkiisa saatahay waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeela bay leedahay yani wax kasta in raali galiyaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caanka ah atakabbur bay dhahdaa iyo alkibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad waxay yar samayso lagu yeesayo hoos u soo dhacday waa uqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan alcinaad madaxdaygo ninkan dabadabasani badan uu ka arko uu ku guumaysanaya aad wax iska dhicisid laakiin guriga dhabtahay waa guriga labada midna oolin ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taacad dhamaanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi Muhammad tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu calayhi Muaad ibn Jabal markuu Shaam iyo Meelaan ka yimid uu arkay qolo boobabkoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yiraahdaa aanu ku sujuudno oo isku dayay wuxuu nabigu ku yiri salawaatu waxaad sameynaysaa waa maxay qisadii buu sheegay nabigu wuxuu yiri haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadam haddaan oran lahaa bini aadam sujuud waa maxay
sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhaha haddii bashar uun la odhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa la odhan lahaa ragiina u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jiraabaa loo baahanyay ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq